Assalaamu calaykum. Ka waran haddii shirkad weyn ay tiraahdo waxaa igu soo dhacay fikir ganacsi oo ah in aan hamburger iyo digaag ka furto Mareykanka si aan ula tartamo McDonald's. Ama haddii la yiraahdo ka waran Talyaaniga oo ah hoygii biitsada ayaan biitsa ka furanayaa. Ama meel kale haddii aan ka tuso ka waran haddii maqaayado waaweyn aan ka furto Turkiga anigoo ujeedkaygu yahay inaan Turkida ka weeciyo cunista kabaabka. dabcan waa fikrado qariska tuurnimo ah oo aysan muuqan inay guuleysanayaan balse intaanan bilaabin muuqaalkeena waxaan idinka dalbanaynaa inaad like inoo saartaan muuqaalkan siina gudbisaan haddii aan u soo noqonno dulucda barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay shirkadda weyn ee Mareykanka ee leh silsiladda maqaayadaha biitsada laga cuno ee loo yaqaan Domino's Pizza oo muddo 7 sanadood ah loolan ganacsi oo faraha looga gubtay kula jirtay maqaayadaha lokaalka ah ee ku caanbaxay biitsada Talyaaniga iyadoo markii dambana haatan xirtay xarunteedii ugu dambeysay ee biitsa lagu sameeyo gudaha waddanka Talyaaniga markii ay suuq xumo iyo macaamiil la'aan ku dhacday taasoo uu macnaheedu yahay in ay guud ahaan xirtay 29 istooro oo ay ku lahayd Talyaaniga oo ah halkii ay biitsadu ka soo ifbaxday rajo weyn ayay qabtay shirkadda Domino's Pizza waxaana qorshaheedu ahaa in 880 xarumood ay ka furato Talyaaniga laakiin dadka Talyaaniga ee jecel biitsadooda soo jireenka ah ee gacan ku samayska ah ayaa waxa ay ka guuleysteen shirkad weyn oo hantideedu ay gaarayso $15 bilyan. Talyaaniga waxay caado u leeyihiin biitsada iyagoo si joogto ah u cuna tan iyo sanadkii 1889 waqti gooni ah oo ay cunaan biitsadana uma qorna oo dadka Talyaanigu waxay biitsada cunaan subax, galab iyo habeen ama waa ku quraacan kartaa ama waad ku qadayn kartaa waadna ku cashayn kartaa ma jiro guri Talyaaniga ku yaala iyo qof Talyaani ah oo aan garanayn sida loo sameeyo biitsadooda aadka u macaan ee ka kooban burka, yaanyada, olyoliivada, farmaajada iyo kalluunka tuunada waana dhaxal ay ka dhaxleen awoowayaashoodii hore shirkadda Mareykanka ah ee Domino's Pizza ayaa muddo isku dayeysay in ay Talyaaniga barto noocyo kala duwan oo biitsa ah sida biitsa hilib karooto iyo qudaar lagu jarjaray iyo sidoo kale noocyo kale oo biitsa ah oo dusha looga shubayo cananaas la jarjaray laakiin waxyaabahaas oo dhan way ku socon waayeen bulshada Talyaaniga oo sheegay in biitsa cananaas aysan ka shaqaynaynin dhulweynaha Talyaaniga inkastoo Domino's Pizza looga guuleystay dagaalkii biitsada ee gudaha Talyaaniga ayaa haddana waxaa jira shirkado kale oo Mareykan ah oo weli xarumo fara badan ku leh Talyaaniga sida McDonald's oo la aasaasay sanadkii 1960 isla markaana 640 xarumood ku leh gudaha waddanka Talyaaniga waxaana maqaayadahaasi ka shaqeeya ilaa 25,000 oo shaqaale ah sidoo kale shirkadda Burger King ayaa iyaduna Talyaaniga ku leh 225 maqaayadood biitsada Talyaaniga ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah biitsooyinka ugu caafimaadka badan caalamka gaar ahaan midda la yiraahdo pizza margherita oo ka kooban bur yaanyo fresh ah farmaajada mozzarella iyo caleenta reexaanta sidoo kale waxaa iyana aan la hilmaami karin pizza napolitana oo iyana ka kooban cajiin leebita lagu daray yaanyo fresh ah farmaajada mozzarella reexaan iyo miraha olyoliivada dadka isticmaala baraha bulshada ayaa ku maadeystay qorshihii dhicisoobay ee shirkadda Domino's Pizza oo 12,000 oo xarumood ku leh caalamka Talyaanigana timid sanadkii 2005 waxaana hadallada ay dadku soo dhigeen barta Twitterka ka mid ahaa Domino's maskaxda ayay ka waalnayd markii ay isku dayday in ay gudaha Talyaaniga kula tartanto biitsada Napolitana haddii aad doonaysid in aad geesinimo iyo kalsooni u lahaataa mashruuc ganacsi waxaad soo xusuusataa qorshihii Domino's ee ahaa inay 880 xarumood oo biitsa ah ka furato Talyaaniga qof kale ayaa soo qoray maqaayad biitsa ah ayaan ka furanayaa Talyaaniga sida Domino's Pizza oo kale waxay la mid tahay adigoo yiri baraf ayaan ku iibinayaa cirifka waqooyi ee ugu qabow adduunka waxaan halkan ka baranaynaa in dal walba uu ku adkaysto cuntada uu caanka ku yahay isla markaana uusan ku bedelan cunooyin kale oo dalka dibaddiisa laga keenay marka aad ku dhaganaato cuntada aad caanka ku tahay waxay muujinaysaa inaad leedahay dhaqan iyo taariikh soo jireen ah waad ku mahadsan tahay ilaa gabagabada muuqaalkeena haddii aad nala soo gaartay waxaan ku xusuusinaynaa inaad like noo saarto muuqaalkan haddii ay tahay markii kuugu horreyso aad na soo booqatana waxaan ku leenahay ku soo dhawow daruuraha oo subscribe inagu dhiirigeli mahadsanid